Guddoomiyayaasha xisbiga Ucud iyo Wadani Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro oo si wadajir warbaahinta ula hadlay ayaa madaxweynaha Somaliland ku eedeeyay inuu canshuurta shacabka ku iibsanayo xildhibaanada mucaaradka isla markaana dhibaateynaya kuwa muxaafadka taageera ee mucaaradka. Alxamdulillahi rabbil caalamiin salaatu calaa sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ilaahay ma hadli subxaanahu wa ta'aala. waxaan maanta halkan idinku yeedhnay waxa weeye in badan baanu aamusnayn oon islahayn waxaa Soomaali ku maamaadaa gamca geli jiro hoos baa loo dhaqaa doorashadii wanaagsaneed ee shacbigeenu si fiican u qaleen ha ka dabageenina xumaan adduunka niyad jabisa iyo shacbigeena. hadda waxaa la yidhi rati ninkii lahaa uu dabada haya ma kaca baa la yidhi. maanta guusha aynu gaadhnay sumcadda aynu helnay shacbigeenaa footeeyey isbeddel u footeeyey waxaa moodaa inuu madaxweynaha Muuse Biixi u dalkii sumcadiisii iyo wadajirkiisii iyo horumarkiisii uu dabada hayo. markaynu taariikhayno ficiladu sameeyey Muuse waxaa ka koowa komishankii ayuu guddoomiye ku-xigeenka ka dhigay laba shakhsi oo isagu soo magacaabay. waanu iska dulqaadanay xasbuna allahu nicma wakiil baanu nidhi. wuxuu ku xigsiiyey agaasimihii guud ee komishanka oo isagu tartan ku soo bixi jiray ana magacaabi jirin ayuu madaxtooyada ka keenay. iyadana waanu iska aamusnay. wuxuu bilaabay in musharaxiintii markii loo hadhub qaaday in musharaxiintii aanu sharaxnay ee beeshii ka soo jeeday ee potentialka oo qaarkood haystaan sinjiyad shisheeye in xarib xasab kala daalay kuna qasbay inay tanaasulaan. waanu soo xishoonnay ilaa inta doorashada aynu heshiinay. waxaan doonaynay inay doorasho noo dhacdo bilaa buuqi wuxuu doona ha sameeye aanu hirgelino uun bigger pictureka inay doorasho dhacdo oo baarlamaanka 15 sano ku jiray bilaa sharciga taxku waxa galo yahan tax ayaa suuqintu ay ka active tahay si loo bedel lahaa guurtidaas ka fadhiisatay ee dhaxalka ah ee dhaxalkii labaad maraysa kii hore dhintay kii kama dhintay ee constitutionka in loo bedelo si loo tartiib geliyo executive-ka isna saqiiray intee qofba qaadan ilaa maalintii la doortay diyaaradii tee qof qaadan weydo faleedku iska baabaa aan kicinba. alxamdulillahi rabbil caalamiin waan ku guulaysanay dulqaadkaasna ilaahay mahadi weeye tolerance baan keenay. hadda wuxuu bilaabay madaxweynuhu kuwii noo soo baxay ay isku beesha ahayn ward markii hore diiday inuu sharco uu qaarku ku yidhi waxaa tiinjilibiyeen oo ma soo baxaysaan anagu qaadanay bisig u qabsanay in markay soo baxeen farta ugu yeelay khayr ahaan u ka haystay. doorashadii asxaabta gashay ee sidan 2006 u galay kulmiyey oo cid aan sameynay isbahaysiga uu ka bedelo qabiil buu bedelay. qabiil ayuu bedelay. aniga Cabdiraxmaan ayuu oo laba xusbiyood xusbiyadu reer ma ahaane waa lagu wada jiraa beelaa reer Soomaaliya ayuu xagaradka la'aanta ku leeyahay dadkii garasho gaaban ahaa laba nin oo isku reer isku kay tagay. wada maxay halkaas u maraya maanta waxaas dhan waxaan islahayn ha ka daba geynina
wanaagii adduunka maqlay iyo shacbigeennii niyadda wanaagsan ee wada qabsaday ee footay si fiican u quday in la yidhaahdo warwa kuwaasoo Soomaali isma dhaanto waa kuwa iyaguna isdulba is haysta waxaan leenahay madaxweynaha lacagtii shacbiga islaanta tamaandhada haysata hilibka iibinaysa ninka baabuurka wata ee wadda haysan ee road taxation laga qaadayo islaanta aan haysan mas'uul haysan oon had haysan ee cashuurta laga qaadayo lacagtii ummadda masaakiinta ayaa maanta lagu iibsanayaa xildhibaanadii lagu iibsanayaa waa nasiib darro in cashuurta ummadda lagu isboolgareeyo lagu xumeeyo lagu dhaqan xumeeyo xildhibaanadii u soo baxay ee shacbigu doorteen wadadooda laga tuuro wuxuu madaxweynuhu sameeyey rag xusbiyada ah oo cida oon awood u lahayn oo qaarkood aan xusbiga ku jirin inuu ilaahay heshiis ma la galay oo kulmiye la galeen taasna waddu inagu faraya inuu qofkii kastaba uu yidhaaho anaa Soomaaliland anagu geliya heshiis oonay nidaam dowladeed madaxweyne muuse uu iska duuduubay madaxweyne wuxuu doonayaa inuu shaar u leeyahay oo isaga ku saqa oo ku siman inuu Soomaaliland u talo doonaya laakiin waxaan leeyahay madaxweynuhu Soomaaliland taas kama suurtageli karto hayna tacab khasaarin baan leeyahay hayna tacab khasaarin maalinta caarika la hadlayay ayuu yiri irkaa soo dumiya habaryons halka ninka ciidageliyay halka galama ka geliyay hadda waxaan ku leenahay irkaa hada soo dumisid hada meelka gasha male irkaa inagu soo dumin aan ku leeyahay dheer buugayga waxaan ku hayo day by day waxaan kala hadlayay arrintii caaray haddaan soo bandhigo Soomaaliland maanta nabadda kuma jirteen laakiin da umul baanahay umul soo xareey waxbaan qarinna waxaan leenahay madaxweynaha wasiiradiisa shaqadii ka tegey ee hodheelada uu ku baayacay habeenkii ku gudiya ee qabiilka markuu ka haysanaya imise wasaarad wal sameynaysa intaasoo xildhibaan oo loo yeeray wadareerkiina wasiir baa la siinaya baa la yidhi imise wasiir yaa sameynaysa waxaana dalka inaga qaribin waxaynoo yaalla laba arrimood oo muhiim ah inoo yaalla mid waxa weeye inay momentumkaa jira internationalka ee kiiskeeni meelkasta adduunka dhan ka hadlayaan inaynu ku hawlgalno inoo gamcaysaysana oo aynu xuquuqdayni doonano inagu midaysan oo aynu momentumkaa ka faa'iidaysano midna waxa weeye Soomaaliya oo jaarnahay oo qasan oon jirin doorasho ka socota doorashadaas Jabuuti ku jirta Mareykan baa ku jira Kenya ku jirta Ethiopia ku jirta intuba danteeda ay ku jiraan saameynta weyn inaga nagu leedahay inaynu arrintaasna aynu shaydaan naaranaho inaanu halkaas soo fadhiisan caqli xumo kale oo farmaajo kale ah oo wixii loo doortay iloobo sidoo Soomaaliland u handarmayn garan laha ka shaqeeya inaan dib inoogu iman iyagana aan gacan siino dad wanaagsan u soo baxaan si aan laba wadano jaar ah u samaysan lahayn hawlahaas ay noo yaala gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisu waa dadkeeni wasaaradda arrimaha dibadda 6 bilood waa bilaa wasiir adduunkana dynamics ba ka socda honka ogti waxa ka socda taas waxa ku tusayna markii hore aan shaqeyn jirin roads Soomaaliland road authority labadu way ka maqay taas waxa ku tusayna markii wadanka aan shaqeyn wadankan bariigad u qabatay
waan isku xishooneed shaqaale adduunka wada ogtay maanta dhaqaalaheena halku mariyo maciishadii baka ugu kacday dadkeenu maanta 8% waxa lagu qiyaasaa wadan afarta wadana ugu faqiirsan ayaan ku jirnaa dadkeena niyadba ku dhacay niyadu waxay soo celiyay isbedelka maanta shacabku footeeyay waanu amaanayna shacabka reer Soomaaliland isbedelka waxaan leenahay kuwa ku soo baxay isbedel جمعينا كبربرين وحيلين ليدو صوت دورتي إلالية انتقرتكينا ولاقينا إلالية شرفتي إلالية قرنكينا إلالية لين هاي نحركي مناسبة ده قدومي فيصل بايري دورشدي لبدي دورشة سوسيت كان واحد ناقب صومان كوبي سودن كيمي maanta bishu waa 9 maxkamadda sare waxay natiijadii ku dhawaaqday 7 July madaxweynaha dastuurku wuxuu siiyay 3 maalmood madaxweyne soo hormaray oran maayo laakiin waqtigiisii maalmaha ka hadhay maalmahan iska dhamaysto xildhibaanadu intii badnaa dul qaateen ha iska dul qaateen madaxweynuhu hadduu doono maalinta ugu dambeeya ha ka dhigo dastuur baynu leenahay xeerar baynu leenahay cid dastuurka iyo xidda xeerar ka sarraysa ma jirto markay doorasho qabsoonto masalan doorashada madaxtooyadu markay qabsoonto dee ninka tartamay ee helay marka maxkamadda sare ku dhawaaqdo ayuu madaxweyne yahay maanta la dhaarinaya waxaa loo dhaarinayaa un xidhka xilkana waa la isku dhaarayaa waa waajib mudana golaha wakiiladana waa la mid maalintii maxkamadda sare ku dhawaaqday buu xildhibaan yahay immunity-na yeesha dhaartu sharciyeyn mayso xildhibaannimada ee waxay waajibinaysaa inuu u dhaarto shacbiga inuu waajibkiisii gudanayo marka mudanuhu maalintii maxkamadda sare ku dhawaaqday bishii 7deeda ayuu mudane noqday habeen hore dhacdaan Soomaaliland hore uguba baan xildhibaani ka dhawaaji saqadii dhexe nisaq dhexe hadlay waxa ka dhaxaliyay wax weyn u bayla tahay ninka mudanaha dawaanin mudanaha maxkamaddu soo saartay inuu mudane yahay magaciisana ku dhawaaqday wuxuu ka hadlayaa arrin ah inuu dal aanu jaarnahay tagay dabeedna ciidamo ay geeyeen meel saldhiga dabeedna markii la yidhi maxaa lagu haystaa ay nimankii wada yidhaahdeen dowladdiisaa soo ashkatiisay arrintaasi inay dhab tahay oo ay xaqiiqo tahay waxay waajib ku tahay xukuumadda inay baadho weeye inay dabagasho weeye inay soo xaqiijiso weeye xildhibaan iska daaya muwaadinka ayaa xukuumadda ku waajiba inay badbaadiso waddan kale hadduu joogo hadday dhibaato la kulanto xoolihiisa iyo naftiisa ayaa ka mas'uula haddii safaarad ku leedahay safaaraddu ka mas'uul noqoto waa aragtaan haddii jeedii dowladda karaya marka dhibaato dhacdo muwaadiniintooda way guraan oo maraakiib iyo diyuurado soo diraan waa xilka dowladnimada taas baa waajibinaysa arrintaasi waa in xukuumaddu baadho waa inay daba gasho waa inay xaqiiqadeeda keentaa sidoo kale golaha cusub markuu fadhiisto waxa ku waajiba arrintan inuu daba galo oo meel kastay gasho la galo kiiskaasi waa in la xidhaa oo xaqiiqada laga keenaa inta xukuumaddan xilka hayso xitaa hadday tani xilka keeni weydo ta dambe waajib ku tahay inay kiiska daboosho oo xidho waxaad maqlayseen mudanayaal axsaabta mucaaradka ka soo baxay ama isbahaysiga oo yidhi waxaanu taageeray xisbiga dowladda cid hadal haysa iyo mucaarad hadal haya iyo midna lama maqal waa garanaysaan tirada ka soo baxday
public u hadashay ama media la hadashay ee kulmiye ahayd ee tiri waxaanu taageeray isbahaysiga mucaaradka maalintii ka soo baxeen ilaa imaka xamba socota wala dacweynaya wala dhibaataynaya wala hanjabaya arrimahaasina arrimo dalkan iyo dawladnimada midna ka fiican maaha hadduu dee madaxweynuhu leeyahay kuwa mucaaradku xaq bay u leeyihin meeshay doonaan inay maraan dee kuwa kulmiyana xaq bay u leeyihin meeshay doonaan inay maraan waxaa idin weliba xisbigiisii joogo laakiin dee hadduu isagu bilaabay waana isku xuquuq u noqdaanoo waaba khalad laakiin dee hadduu yidhaa kuwaygana kuwa xagga ka yimaadaana waa okay wax dhibi ma jiro taasi suurtogeli mayso wax la aqbali karayana maaha cid qaadanaysaana ma jirto in la hadido iyo in loo hanjabo mudanahana waa xaaraan waana sharci daro sidaa guddoomiye faysal sheegay waxaynu ka foodinaynay muddo dheer doorashooyinkaasi waa ka wada warqabtaan shacbiga reer somalilan waxay ku qabsoomeen dulqaadkii axsaabta mucaaradka ah oo wax badan liqay oo wax badan oo ay xaq u lahaayeen ka tanaasulay waxaynu doonaynay hawshani inay si wanaagsan inagaga dhammaato iminkana waxaan ka rajaynaynaa ugu baaqaynaana madaxweynaha maalintu doodana ha ka dhigo sida dastuurka iyo nidaamku yahayna ha la raaco xana badan baa jira xanaha waxaa ka mid ah in fadhiga koowaad lagu qaban doono meel ka baxsan golaha wakiilada taasina waa khayru sharci cid aqbali doontaana ma jirto dastuurku wuxuu waajibinayaa inuu fadhigu ka dhaco golaha wakiilada gudihiisa laguna dhaariyo fadhiga golaha wakiilada gudihiisa waxaan rajaynayaa waajibaadka dee faraha badan ee guddoomiye faysal ka hadlayay iyo galdaloolooyinkaa faraha badan inaanay noqon wax caadaaho inagu soo noqnoqda oo aynu hore uga soconno doorashadii oo aynu qabsanno howlaha faraha badan ee inoo yaalla ee inoo qabyada ah ay ka mid tahay doorashadii golaha guurtida waxaa loo baahan yahay in miiskii wadahadalka la ysugu yimaado oo laga wada hadlo arrimaha faraha badan ayna hor yaalla qabyadaas iyo doorashooyinka inagu soo socda iyo qaarna waa wakhtiyaysan yihiin qaarna ma wakhtiyaysna in la ysugu yimaado talo awalba si loo isugu imanayey axsaabta mucaaradkii dhowr jeer baanu codsannay in la isu yimaado intii doorashada ka dambaysay laakiin kulamadaasi may qabsoomin waxaanay ka qabsoomi waayeen xagga xukuumadda aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu